السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دhowow qaybtii shanaad ee barnaamijka Ramadaanka. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلى الله ربي والإسلام. insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa fadliga iyo faa'iidooyinka ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan. runtii fadliga bisha Ramadaan ay leedahay ma ahan waxaan halkan ku soo koobi karno, balse sida caadada noo ahayd waxaan ka soo qaadanaynaa kuwa ugu waaweyn ama ugu muhiimsan. bisha Ramadaan waxa Ilaahay ku gooni yeelay subxaanahu wa ta'aala naxariis fara badan, nimcooyin fara badan iyo sidoo kale fadaa'ilo aad u fara badan. waxaana helaya qof walba oo muslim ah oo u hoggaansamay adeecay Allah subxaanahu wa ta'aala, adeecay rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxaana kamid ah faa'iidooyinkaas faraha badan. kow, bisha Ramadaan waa bishii Qur'aanka. waxaa la soo dejiyay kitaabkii ugu dambeeyay oo lagu khatimay kutubtii uu Ilaahay soo dejiyay. waxaana lagu soo dejiyay nabigii ugu dambeeyay nabiyadii iyo rusushii uu Ilaahay soo diray, khaatimul anbiyaa'i nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. midda labaad waa bishii kutub badan oo kale Ilaahay soo dejiyay, sida habeenkii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan waxaa la soo dejiyay suxuftii ama warqadihii nabiyullaahi Ibraahim. habeenkii lixaad ee Ramadaan waxaa la soo dejiyay kitaabkii Tawreed. 13 Ramadaan waxaa la soo dejiyay kitaabkii Injiil. 18 Ramadaan waxaa la soo dejiyay kitaabka Zabuur. 24 Ramadaan waxaa lagu soo khatimay ama lagu soo gabagabeeyay kutubtaas oo dhan kitaabka Qur'aanka Kariimka. midda saddexaad, bisha Ramadaan waxaa ku jirta habeen ka khayr badan 1000 bilood, waana habeenka Laylatul Qadriga. Ilaahayna waafajiyay Laylatul Qadri khayrun min 1000 shahr. waa bisha xurreynta dad badan naarta laga xoreeyo. waa bil dambi dhaaf qofkii kasbada. waa bisha la xiro shayaadiinta iyo albaabada naarta ee la furo albaabada jannada iyo naxariista. qofkii sooma bisha Ramadaan isagoo rumaysan ajarna xisaabsanaya waxaa loo dhaafaa dambigiisii hore. qofka sooman ducadiisa lama soo celiyo. soonka iyo Qur'aanka way u shafeecayaan qofka maalinta qiyaame. soonka waxaa lagu dhaafaa dembiyada. soonka waa gaashaan uu qofku kaga gaashaanto naarta. jannada waxaa ku yaala albaab la yiraahdo Al-Rayaan oo ka galayaan oo kaliya dadka sooman. runtii fadaa'ilada ay leedahay intaas ayaan ka soo qaadanaynaa oo ka faa'iideysanaynaa waqtiga aan haysano. waxaan ku darsanaynaa xikmadaha laga leeyahay soonka anagoo soo koobayna wixii Alle naga fahansiiyay subxaanahu wa ta'aala. Allah wuxuu u farad yeelay xikmado badan darteed iyo ujeedooyin dhowr ah xagga diinta iyo dunidaba. waxaana ka mid ah kow, hirgelinta cabsida Ilaahay Azza wa Jalla, waayo waa cibaado uu ugu dhawaado adoonka rabbigiisa isagoo ka tegaya waxyaalaha uu jecel yahay oo uu ka joogo rabitaanka markasta. wuxuu ku celiyaa naftiisa taqwada. labo, waa tababar si uu qofka ugu haro macaasida iyo dunuubta. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, qofkii aan iska daynin hadallada beenta iyo dhaqanka xun, Alle dan kama lahan inuu iska dayo cuntadiisa iyo cabitaankiisa. wuxuu ku yaalaa xadiidkaasi saxiixul Bukhari. taasi macnaheedu waa qofkii aan ka joogin beenta iyo fisqiga xagga qoolka, macnaha hadalka iyo ficilkaba ma uusan haleelin gunta iyo muhiimadda laga leeyahay soonka. 3, xusuusashada dadka aan waxba haysan iyo waxsiintooda, waayo waxa uu xasuusanayaa ama dareemayaa walaalihii fuqarada iyo sida ay uga sheegtaan labada kala daran ee gaajada iyo haraadka. markaas wuxuu ku dadaali doonaa inuu kaalmo siiyo uu u asxaanfalo masaakiinta iyo dadka baahan ee fuqarada ah, maadaama uu dareemay waxyaabihii ay dareemi jireen. ugu dambeyn, maanta muuqaalkeena halkan ayuu ku egyahay. waxaan ugu talagalnay muuqaalada ama barnaamijyada bisha Ramadaan oo idin inaan ku soo koobno bishaan, balse waqtiga ayaa inoo saamixi waayay. sidaas ay tahay alxamdulillah waxyaabo badan ayaan ka hadalnay anagoo soo koobayna. intaani wixii ka dambeeyay waxaan guda galnay ama fooda inuu soo ah cashrul awaakhir. insha Allah mawduucyadeenna xiga waxay noqon doonaan fadliga ay leedahay 10 dambe ee bisha Ramadaan oo ugu muhiimsan ay kamid tahay Laylatul Qadriga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.